musharaxiintu ku fadhiisanayso waa in 5 laga dhigaa kuraasta xagga taala waa in 5 kursi laga dhigaa kuraasta dhaxayna soo qaad halka taala xagga lagu hadii halka taala hadii kalena waa in 5 lagu buuxiyaa ياب هلا عاوي أسكرت قف كير كده حاولوا بحياة قدوميها يا وحي صندوق إنه قدي ده أنا لينك حينوجح إن شاء الله وينو دمانيسا ergeedu iska dul qaataan waa dareemaya culays badan baa jira ilaa saako dhamay tabcan sanaayin qofkii xaalad degdega u baahan askarta ka caawinaysa insha Allah dhaqsana way inuu soo laabtaa albaabku hay noo xinaadaan bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan kursigan ku tartamayaa numberkiisu yahay 233 5 musharax waxaan ka horeysiinayaa operational planka amba qorshaha doorashada la isla ansixiyay waxa uu dhigayaa si ay u ogaadaan musharaxiinta iyo dadka kale meesha jooga haddii in ka badan 3 musharax ay u tartamaan kursi ka mid ah kuraasta isla markaana ergada quorumka fadhida ay ku tartamaan qofka hela wareegga koowaad 50+1 ayaa wuxuu saa ku noqonayaa musharaxa ku guuleystay kursiga haddii uu musharaxna noqon waayo oo uu heli waayo boqolkiiba 50+1 wax ka badan 3 musharax ee ugu sareeya ayaa u gudbaya wareegga labaad marka wareegga labaad waxa lagu aadayaa in ka yar qofka oo hela boqolkiiba 51 marka musharaxa hela boqolkiiba 51 wadarta ergada meesha fadhida waxa uu ku helayaa saasoo ku noqonaya xildhibaan habraaca hadda fit iyo seat ay isla ansixiyeen oo dhameystiran operational banaanka waan bilaabaynaa doorashadeena musharaxiinta waxaan siinayaa 3 daqiiqo ilaa 5 daqiiqo sida code of conduct ku dhigayo qofka waxa uu ku koobayaa taariikh nololeedkiisa sababta musharaxa uu yahay iyo kalsoonida codka ergada inuu weydiisto inta wixii ka baxsan waxay noqonaysaa offense amba jabin xeerka anshaxa ee aan ka saxeexnay qofka musharaxa hadduu musharaxu jabiyo xeerka anshaxana waxa ka waajibaysa ciqaabaad waa mahadsantiin musharaxiinta ayaan qof ugu yeeri doonaa musharaxa koowaad aan u yeerayaa wuxuu noqon doonaa Axmed Ismaan Diiriye ku soo dhaw mikrofoonka بسم الله الرحمن الرحيم gudiyada doorashooyinka ee labada heer waa seat iyo feet ergada sharafta leh ee madasha ku sugan ciidamada amniga saxaafadda iyo dadka kale ee milgaha leh ee madasha ku suganba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقو سيد الله الشيقي وأحمد عثمان ديريه وحانا هاي أشرحان كرسيغا وترسيغي سيهاي لبا بقول يصدح يصدن يقولها شعب كصوماليا انت آنا إرقاد الشرفت له كدلبان عدكودا وحان شعلهاي إنان إن يرتلمامو قفك أنا هاي waxaan ku koray oo aan ku kaalin galay magaalada Hargeysa oo uu kursigan ku abtirsaday Hargeysa ayaan waxbarashadeedii ku qaatay ilaa heer jaamacadeed Hargeysa kadibna masterteydii koowaad waxaan ku qaatay wadanka Kenya magaalada Nairobi kadibna waxaan master kale waaday ariga Ingiriiska anigoo ka baxay jaamacadda lagu magacaabo Sussex waxaan ku takhasusay culumta horumarinta iyo maamulka dawliga ah xagga khibradda shaqo waxaan dhowr iyo 10 sano u dambeeyay ka hawlgelayay hay'adaha aan dawliga ahayn ama non-governmental organizationska anigoo 6 sano ugu dambeeyay ka hawlgelayay qaramada midoobay gaar ahaan laanta u qaabilsan horumarinta ee magaceeda loo soo gaabiyo UNDP muddadaas aan ka shaqaynayay hay'adaha aan dawliga ahayn waxaan ka hawlgelayay wadanka Soomaaliya oo aan maray daraf ilaa daraf sidaas daraadeed waxaan ahay shakhsi aad ugu dhuun daloola oo ka dheragsan xaaladda uu dalkeenu maanta ku sugan yahay waxaan muddo dheer kulaalayay siyaasadda oo ma ihi qof si ku soo galaya siyaasadda sidoo kale xoolo uma soo doono siyaasadda oo mansabka hadda aan hayo ayaa ka manfac roon hase ahaatee waxay wada 2 daqiiqo ku harsan han durugsan iyo himilo fog oo ku aadan inaan tamar ku biiriyo dawlad dhiska Soomaaliya oo meel xasaasi ah maraya dhanka kale dadka kursigan leh ee ergada halkan fadhida ay ka mid ka tahay waxay u haraadan yihiin inay helaan dirane iyagoo u darban oo u adeega oo dantooda ka dabagala dalow kasta oo ay gasho waxaan markaas u taagnahay inaan dadka kursigan la ka qabtiro matalaad xumada haysataa oo aan si mug leh ugu adeego ugu dambayn waxaan yaqiinsanahay in ergada ay hor fadhidaa ay si mug leh ugu baraarugsan tahay xaaladda dal ku jiro iyo baahida loo qabo in dhalinyaradu wax ku yeelato talada dalka oo ay qayb libax leh ka qaataan dhismaha qaranka waxaynu u baahannahay dhiig cusub oo wareejiya garaanta dawlad dhiska Soomaaliya si aynu uga baxno dalcadda aynu fanaynayno fikta badhaadhahana aynu u gaadhno waxaan markaas ergada sharafta leh ka codsanayaa inay codkeeda ii hibeeyaan si aan aniguna ugu heliyo iyaga iyo qaranka oo idil waqtigu ka dhamaaday waxaan aad ugu kalsoonahay inaad codkiina ay siin doontaan waanad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waad madsan tahay waxaan rajaynayaa musharaxiintu inay waqtiga noo dhowraan halkaaga xaggaa fadhiiso hadda waxaan u yeerayaa musharax Dayib Cabdulqaadir Jaamac isagana inuu si kooban taariikh nololeedkiisa sababta uu isu soo sharaxay iyo kalsoonida codka uu weydiisanayo ergadiisa waa maasanta soo dhowday بسم الله الرحمن الرحيم ergada sharafta leh guddiga doorashada labada heer kala duwan fiid iyo siid guddiga amniga martida sharafta leh baxda saxaafadda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan anigoo ah musharax Dayib Cabdulqaadir Jaamac waxaan ergada sharafta leh ka codsanayaa ee halkaas ugu timi inaad codkiina siisaan waad mahadsantihiin
aad buu mahadsan yahay dayib waqtiga waa inoo beeqaamiyey waxaan u yeedhi doonaa musharax kale cabdixakiin maxamed colaad isagana soo dhow cabdixakiin بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ربي صلى على الحبيب محمد مقعيقو عبد الحكيم محمود علاad waxaan ku dhashay magaalada Burco 1988 heerkay kala duwanaa ee waxbarashada min bidaayo ilaa nihaayo waxaan ku soo qaatay wadankii ilaa heer jaamacadeed waxaan doonayay oo aan kursigan isku diiwaan galiyay oo aan u tartamayay waxaan doonayay inaan wax ka bedelo masiirka iyo siyaasadda reerka iyo dadka kursigan leh kursigan lambarkiisa waxa la yiraahdaa 233 aniga oo miirkayga imaankayga qaba ayaan waxaan go'aansaday inaan kursiga u tartamo markaan arkay kursigaasi meesha uu yaalo iyo dadka uu matala sida ay yihiin iyo sida aan uga qatayn lahay dadka uu kursigaasi matala ay siyaasadda uga qatayn ama uga aradan yihiin laakiin waxa jira inaan ergada halka fadhida aanan hal qof ka garanay aniga musharaxa waxa jirta inaan hal qof ergada aan lay diiwaan gelin aniga oo kaliya ma aha musharaxiinta oo dhan saddex qof oo musharaxiin oo kamid ah in ergada waxna laga siin waxa jirta inaan ergada la wada lahayn aniga marka imka ay hor fadhiyaan baa igu horeysa mana garan karo sida ay ilaan codkoodu waa amaano saan codka u weydiisanay qof aanan garanayn ma garan karo qof aanan garanaysan codka mikrofoonka yaalan daminin waxaan ka rajaynayaa inaad doorashada waa gudoomiyaha ku soo gabagabeynaya aniga magacaygu waa Cabdixakiin anigu dadka ma garanayo mas'uuliyadna uma qaadi karo waan qaadacay doorashada khilaafaadka aan gaarsiinay waa mahadsantahay walaalo halka fadhiso waa sax musharax hadduu caaban ma fadhiso halka musharaxnimada halkaas fadhisanaya musharaxnimada musharaxu xaq uu leeyahay inuu cawdo boori loo cawdaa jira waana xaqna waa uu leeyahay cid dadna ma jirto waa mahadsan yahay waxaan u yeedhayaa muuna cali cabdilaahi soo dhow muuna بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلهي بهرت مركه هرم هذله وحن سلام يا جديدة وحن سلام يا عيدن كنا نبتقليه العلنية وحن سلام يا إرجدة ولو أنا عندك جري لو صدق قفاك جرنيه أو إرجدة دي هنا أرب فريش حقيقي لكن تضل نسكوت شران ساكن وقادي مركه أنت كي ماذا magacay waa Muna Cali Cabdilaahi waxaan anigu ku dhashay Muqdisho waxaan ilaa waxbarashadeedii dugsiga dhexe grade 5 ku qaatay Muqdisho kadib waa la qaxay waxaan u qaxnay oo tagnay goboladii waqooyi Hargeysa intaa ka dambeysay waxbarashadeedii dugsiga dhexe iyo ka sare iyo heer jaamacadeed waxaan ku diyaariyay Hargeysa waxbarashadeedu waxay maraysaa ilaa heer master degree oo aan bartay culunta diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga waxaan muddo 19 sano ah aan ka shaqeynayay hay'adaha aan dawliga ahayn iyo qaramada midoobay oo aan ka shaqeeyay barnaamijyo aad u kala duwan oo badan oo ay waxaan ku kamid yihiin caafimaadka waxbarashada horumarinta dhalinyarta hababka loo diyaariyo siyaasadaha dawliga ah ee quseeya cadaaladda iyo ma aragtay sida dib u dhiska loogu sameeyo dawladda iyo dawlad wanaaga iyo waxyaabo kale oo fara badan oo barnaamijyo badan oo aan ku kicinaynay aqoonta dadka dalka iyo ma aragtay caruurta iyo dadka ma aragtay bulshada rayidka marka inta ka imaado anigu waxaan ka soo shaqeeyay dhammaan Soomaaliya goboladeeda oo dhan ayaan barnaamijyo badan madax ka soo noqday waliba dhowr iyo 10 sano ugu dambeeyay waxaan ahay qof xogogaal u ah bulshada Soomaaliya iyo deegaankaygu sida u nool yihiin qof waxaan ahay siyaasadda kaga jirtay backgroundka dambe oo siyaasado badan oo wadanka loo sameeyay qayb aan ka ahaa waxaan ku shuruuc badan oo wadanka loo sameeyayna qayb aan ka ahaa wax ku dirsanay ama daraasaad badan oo wadanka loo sameeyayna qayb aan ka ahaa maanta marka waxa igu dhaliyay 19 sano ka bacdi markaan soo shaqeeyay ururada aan dawliga ahayn iyo qaramada midoobay waxaan isku gartay maanta in ahay dadka uu dalku u baahan yahay wax ka saxi kara
hadday shuruuc noqoto hadday dowladnimada noqoto hadday noqoto nabadaynta iyo ma garanaysaa in dadkii dib loo heshiisiiyo oo maar Soomaaliyada inaan aqooni anu 10 sano ku gaaray halkan markii la qaxay dowladda system iyo kala dambeyn iyo waxaan kursi ayaan ku soo koray walow wax kasta jiri karaan marka siyaasaddu dadna ay u dan tahay dadna aanay ku qancin waliba ay dadka anigu aan ka soo jeeday yihiin dadkii aad maarta uga cawday systemka hore ee aabahay siyaasiga ka ahaa ee siyaasadda ku jiray marka inta ka imaado han waxaan qof han leh wadankiisana u han weynaa hamina uu kaga jiray siyaasadda si uu wadanku ugu qabto anigu mansab iyo xoolo iyo magac inaan ka sameeyo umaan soo istaagin laakiin waxaan soo istaagay inaan dadka u noqdo badbaadiye u hadle codkooda baarlamaanka u fadhiyo gaar ahaan dadka deegaankayga ka soo jeeda oo siyaasad xumo ku haysay 22 sano ugu dambeeyay Muqdisho iyo Soomaaliya meel kasta ay joogaan ay aadna ugu dhibanaayeen hadday noqoto caruurta hadday noqoto dumarka hadday noqoto dhalinyartoodii hadday wax walba u baahnaayeen ay ka baahiya banaanka ka ahaayeen baahiya asaasiga ay u baahnaayeen 1 minute baa taasaan soo istaagay laakiinse waxaan ogaaday horena maama waxa loo yidhi hal xaaraani nirig xalaal ma dhasho ergada meesha fadhida cid kama garanayo xalayna dadkii cawday waan ku jiray waana qaadacay doorashada ma santa walaalo wabta musharaxa fariiso adoo mahadsan ama iska caadi bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u yeedhiyaa musharax Ibrahim Aadan Muuse musharaxa soo dhawow waqtigaaga qaado adigoo insha Allah kor fadhaatana ilaalin doona sidoo kale waxaan rajeynayaa qofku caabashadiisa boriga u qaabilsan insha Allah inuu gudbiyo mahadsantiin بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله أشرف الصلاة والسلام مدن المرويين مرتدى شرفت له إعلامك صحافة مرتياشة قد ورشدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول حنا هاي دكتور وحلا الدكتور إبراهيم آدم موسى جامع وكل شيء هرقيسة كبر باري دلالك خليجك أو سعودية هير كوات كقاطي جامعة السودان كتالة أو ميديسن هير كلاباد ماستر كي بي اتش دي كقاطي مصر وكنت تخصص كأوفثالمولوجي داوينتا عند عدد عندها يقلتان كيسة الحمد لله رب العالمين وهم دعينا أيام مدحوينها فخامة الرئيس معالي رئيس الوزراء إنه دور الشوفي عن قبتين وميشن سوق عرسيين يو سياسيين تا أو قيمها كل دلكا مركا أركي سي دور الشدو صعته أو مرشحين تو آد وبديهين أو أفر قاريان أنا كوك متشانات كوا وحن قرار قاري أو إرجدنا ديسكو هستا وحن قاري إنا تناسلو أو قفك صوبحنا إنه هم بليو كلهم مبروك السلام عليكم ما سنتي دكتور واحد فريسان كرتا ميسكا مشرحة وأنا ما سنت هاي بسم الله الرحمن الرحيم waxay noo bilaabmi doontaa qaybtii labaad ee codeynta iyo kalsoonida musharaxiintan liiska inoogu qoran waan bilaabi doonaa waxaan rajeynayaa inay diyaar yihiin liisaska aan akhriyi doono ergada waa loo yeedhayaa qofka u baahan in la caawiyo waa mahadsantahay waxaan u yeedhayaa ergada magacoodan ayaan wici doonaa deedna qofkuu soo kici doonaa wuu codayn doonaa marka uu codeeyo waxa markuu codeeyo sanduuqu ku ridi doonaa qofkii u baahan in laga caawiyo wuxuu soo kaxaysanayaa qofka soo caawinaya waa mahadsantihiin aan kusoo wareejiye mikrofoonka sagal bismillah أنيسة أحمد حرسي أنيسة أحمد حرسي هذا عيديد وعيس ورسمة هذا عيديد وعيس ورسمة
بشارو محمود حاشي عقال بشارو محمود حاشي عقال أرضو حوال حسين علي آمنة علي محمد عبد الكريم آمنة علي محمد عبد الكريم آمنة عويل علي سعدة يوسف جامع عبدي سعدة يوسف جامع عبدي هذا محمد يوسف هذا محمد يوسف ديقة أحمد محمد حرسي ديقة أحمد محمد حرسي استاهل عبدي جمعاله استاهل عبدي جمعاله حمدة إسماعيل عيديد حمدة إسماعيل عيديد هبو عبد الرزاق حسن عبدي هبو عبد الرزاق حسن عبدي نمعو محمد أحمد آذن نمعو محمد أحمد آذن كيف أحمد فارح جامع كيف أحمد فارح جامع أسماء عثمان حاشي شنقلة عنب آذن حسين عنب آذن حسين ياسمين إسماعيل عيديد ياسمين إسماعيل عيديد الواد حسن يونس عثمان الواد حمدي عبدي يونس أحمد حمدي عبدي يونس أحمد أيان أبو بكر محمد أحمد أيان أبو بكر محمد أحمد ياسمين عثمان قوليد ياسمين عثمان قوليد فهمو مصطفى عبد الله فهمو مصطفى عبد الله هبو فارح محمد عمر هبو فارح محمد عمر هبو فارح محمد عمر حمدي عبد الله عيسى أحمد حمدي عبد الله عيسى أحمد حاو حسن محمد آذن حاو حسن محمد آذن حاو هبون موسى علي محمد هبون موسى علي محمد آمنة عبد القادر فارح محمد آمنة عبد القادر فارح محمد ليلى عبد الله جامع حسين ليلى عبد الله جامع حسين روم بشير عبد الحسن روم بشير عبد الحسن
دقة ضيب محمد أحمد دقة ضيب محمد أحمد برواقة آذن حسن إسماعيل برواقة آذن حسن إسماعيل هذا عبدي آذن نور هذا عبدي آذن نور أباح سيد كيس جامع أباح سيد كيس جامع فلسان سيد كيس جامع فلسان سيد عويل محمد عيديد عويل محمد عيديد عبد الله نور محمد عبد الله نور محمد جامع محمد وعيس جامع محمد وعيس موسى آذن حسين موسى آذن حسين صديق هارون أحمد عثمان صديق هارون آذن عثمان سياد فارح آذن سياد فارح آذن فيصل أحمد جامع عثمان فيصل أحمد جامع عثمان كيس أحمد علي عبد الله كيس أحمد علي عبد الله عبد الرحمن جيدي فارح عبد الرحمن جيدي فارح أنيس عبد الله إسماعيل إبراهيم أنيس عبد الله إسماعيل إبراهيم أحمد حرير عثمان أحمد حرير عثمان آذن إبراهيم حسن جيلي آذن إبراهيم حسن جيلي مرسل محمد حسن عيسى مرسل محمد حسن عيسى فهمي محمد علي ياسين فهمي محمد علي ياسين أحمد محمد يوسف عبدي أحمد محمد يوسف عبدي جامع فرحان جيل علي جامع فرحان جيل علي علمي محمد حسن عبدي علمي محمد حسن عبدي فيصل سعيد عمر علي فيصل سعيد عمر علي عبد الفتاح عبد الله شردي عبد الفتاح عبد الله شردي نجيب أحمد حاشي نجيب أحمد حاشي آذن عبدي دعالي المغن آذن عبدي دعالي المغن موسى ساحل سعيد ديرية موسى ساحل سعيد ديرية موسى ساحل سعيد ديرية عبدي يوسف قرى محمد عبدي يوسف قرى محمد عبدي أحمد دقو عبدي أحمد دقو حسين عبد الله جامع حسين عبد الله جامع وعاني عول علي وعاني عول علي شافعي سليمان جامع شافعي سليمان جامع زكريا آذن يوسف زكريا آذن يوسف آذن قولد عثمان صلاة آذن قولد عثمان صلاة
أسد محمد جامع أسد محمد جامع عبد الشكور محمد عمر إسماعيل عبد الشكور محمد عمر إسماعيل عبد النجيب مهد محمد عبد السمد مهد محمد عبد السمد مهد محمد عبد السمد عبد الرحمن حسن موسى عبد الرحمن حسن موسى عبد الكريم محمد محمود عبد الكريم محمد محمود عيدروس أحمد حرسي عيدروس أحمد حرسي عبد الرحمن أحمد عمر إسماعيل عبد الرحمن أحمد عمر إسماعيل عبد النجيب حسن فارح عبد النجيب حسن فارح محمد عبدي هوري عبد الرحمن محمد عبدي هوري عبد الرحمن محمد عبدي هوري عبد الرحمن يوسف حسين داهر يوسف حسين داهر عبد واحد حسن جامع آذن عبد واحد حسن جامع آذن عيسى محمود محمد علي عيسى محمود محمد علي محمد محمود عرب نور محمد محمود عرب نور محمد نور عثمان راغي محمد نور عثمان راغي محمود عبدي نور علي محمود عبدي نور علي مهد قول جامع عقال مهد قول عقال جامع علمي يوسف نور حاجي علمي يوسف نور حاجي نمعو عبد الرحمن جامع نمعو عبد الرحمن جامع حسين أحمد إبراهيم موسى حسين أحمد إبراهيم موسى شكري علي حسن عبد الله شكري علي حسن عبد الله دعالي أحمد حسين حسن دعالي أحمد حسين حسن جامع يوسف عبد محمد جامع يوسف عبد محمد جامع يوسف الرحيم قف مجلس اللي قبضه هتو فرديو وأنا عضيني هسوي استاجو هدي قف سكوي لابي كاركا إرجع قارت يدي صرنا هسو ديبو عدي كار هيسا هسو ديبتو عدي آن مجعيد اللي قبضي ماشى فردانا هيت ماضو دي أنا عضين ومجلس اللي قبضي أوكي waxaan filayaa in intaas ay ku dhamaatay waxaan u yeerayaa wakiilada musharaxiinta kala ah Dayib Axmed Diiriye iyo Ibrahim oo qof goob joogi meesha u fadhiyo doono saddexdaas halka hore soo fadhiistaan waxaan rajaynayaa gudoomiye inuu isna ka jaro lingaxa inuu lingaxa ka gooyo deedana isku wax walaaqo si codka ay nagiib ugu wareegto oo uu turiyo
wakiilada musharaxiintu ha soo fadhiistaan saddexda musharax halkaa fadhiya wakiiladooda kursi kale soo dhig اوكي ninka saxad waa tanaasulay ma mahadsantiin inoo bilow nige بسم الله waxaynu bilaabi doonaa tirintii أحمد عثمان ديرية أحمد عثمان ديرية ضيب عبد القادر جامع ضيب عبد القادر جامع ضيب عبد القادر جامع طيب عبد القادر جامع طيب عبد القادر جامع طيب عبد القادر جامع أحمد عثمان ديرية طيب عبد القادر جامع أحمد عثمان ديرية 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 ضيب عبد القادر جامع أحمد عثمان ديرية 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 ضيب عبد القادر جامع ضيب عبد القادر جامع ضيب عبد القادر جامع أحمد عثمان ديرية 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 ضيب عبد القادر جامع أحمد عثمان ديرية 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 ضيب عبد القادر جامع
أحمد عثمان ديرية. ضيب عبد القادر جامع. 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 أحمد عثمان ديرية. ضيب عبد القادر جامع. أحمد عثمان ديرية. أحمد عثمان ديرية. أحمد عثمان ديرية. أحمد عثمان ديرية. ضيب عبد القادر جامع. ضيب عبد القادر جامع. أحمد عثمان ديرية. أحمد عثمان ديرية. ضيب عبد القادر جامع. أحمد عثمان ديرية. ضيب عبد القادر جامع. ضيب عبد القادر جامع. أحمد عثمان ديرية. أحمد عثمان ديرية. أحمد عثمان ديرية. ضيب عبد القادر جامع. أحمد عثمان ديرية. 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 ضيب عبد القادر جامع. ergada qofna buuq ma samayn karo. أحمد عثمان ديرية. miiliyuna ma bixi karto fasax ninka ay qof bixi kara ma jiro waa la fadhiya. أحمد عثمان ديرية. ergada fasax albaabka ergada fasax ha ergada fasax so أحمد عثمان ديرية. ضيب عبد القادر جامع. أحمد عثمان ديرية. ضيب عبد القادر جامع. ضيب عبد القادر جامع. أحمد عثمان ديرية. أحمد عثمان waraysi laguma dhex ديرية. bixin karo meesha askartaasi waraysi laguma dhex bixin karo. أحمد عثمان ديرية. أحمد عثمان ديرية. أحمد عثمان ديرية. أحمد عثمان ديرية.
أحمد عثمان ديرية. ضيب عبد القادر جامع. أحمد عثمان ديرية. أحمد عثمان ديرية. ضيب عبد القادر جامع. أحمد عثمان ديرية. ضيب عبد القادر جامع. ضيب عبد القادر جامع. ضيب عبد القادر جامع. أحمد عثمان ديرية. وعدكي وقدم بيي. اوكي. فضلا ميديو صوحنك هاي ريان فضلا هاي صوحنك بقولة ميديو فضلا نظامك العليا فضلا أي على فريم
natiijada waxay noqonaysaa kursigan waxaa u tartamay oo goobta doorashada yimid 5 xildhibaan 5 musharax 3 ka mid ah musharaxiintaasi way ka tanaasuleen inay tartamaan waxaa tartanku u dhex maray labada musharax ee kale ah dayib cabdilqaadir jaamac iyo axmed cismaan diiriye labadaas baana codkii kala qaybsaday oo codkoodu u kala barmay 3 musharax kale way tanaasuleen sidaan arkaynay iyagaana ka tanaasulay musharaxnimadoodii goobtan doorashada iyagoo jooga codaynta natiijada kursiga 233 waxa uu noqday waxa uu helay dayib cabdilqaadir jaamac 36 cod halka axmed cismaan diiriye helay 65 cod tartankii kursiga 233 waxaa ku guulaystay axmed diiriye saasaan ugu gudbay kursigaasi waxaan rajaynayaa goobta doorashaduna maanta saasay noogu xidhantay waxaan rajaynayaa ergadu in abasaskoodii la saaro booliskuna halkaa ay ka bahalayaan isuna hambaleeyaan musharaxiintu aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin saasaanay inoogu xidhantay ergadu ha fadhido inta basaska loo diyaarinayo ergadu ha fadhiyaan ciidankana waxaan rajaynaynaa inay diyaariyaan basaskii